waxaa kale oo fooda isgaray kooxda Juventus oo ah kooxda sanadkan loo saadaalinayo boqolkiiba boqol inay ku guuleysato Serie A-da Talyaaniga waxayna fooda istareen kooxda Bologna ayna uga badisay hala eber halkan ay ku badisay kooxda Juventus waxaana halkaas u dhaliyay laacibka da'daya ayna adduunkoodan ay raadinayaan sida kooxaha waaweyn ay kamid tahay Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona iyo Real Madrid qayaar min meesha kama baxsana laacibkaas oo ah laacib Faransa ka soo jeeda Senegal abihiisa oo ka yimid laakiin ku dhashay dalka Faransiiska laacibka lagu magacaabo Paul Pogba ayaa goosha u dhaliyay Juventus hogaankana u sii dheereeyay wuxuuna laacibkaas u sheegay waraysi uu siiyay TV-ga Rai Sports dalkan Talyaaniga inuu ku faraxsan yahay Juventus oo sii joogi doono wuxuuna sheegay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro Andrea Pirlo, Gigi Buffon oo ah Porto iyo wiilka khadka dhexe maamulo kooxahana ku aanbaxay ku ah xariif ee lagu magacaabo Vidal wiilka Virgil waxaa kaloo fooda istaray Fiorentina iyo Roma oo ah kooxda kaalinta labaad xajisanayso sanadkan Roma hal waxay u badisay kooxda Fiorentina oo ah koox uu tababaro u yahay wiil hooyadiis ay tahay Soomaaliya ay ka soo jeedo magaalada Muqdisho sida warbaahintu ay sheegaysana ah gabar ku dhalatay xaafada Hodan waxa halkaasi hala eber ku badisay kooxda Roma oo ah kooxda xajisanayso kaalinta koowaad لليغا إسبانيا أسبوعا نفتركيسا أسبوع حارنا أيوها محايا لي سنة كان وحا سيئات وحركي كوحدة أتلانتيك مدريد أو لبا إبريكا قبل سي كوحدة ألجا وصوصونا إيا فنيسي يعني حالا حال أي سكوداسي وين هي الصوتان وحي لبا حال وقبل سي إسبانيول لبا يقوش كرة عبي هي الصوتان الأميريا هي كالتا فيغو الأميريا لغا جول أي دليسي الفيغونا أفر جول هالكاس كالتا فيغو أيا وش كرة عبي وحكالا عيار عاو آد لو سوغيو أي كالي دونتا استاديها وين استاديها وين adduunka lagu magacaabo Newcam oo ah istadiyo ay milkiisa ay leedahay kooxda Isbaanishka Newcam ayaa wuxuu martigelin doonaa Atlantic Bilbao Barcelona ayaa martigelin doonta Atlantic Bilbao waxa ay farta ku godan tahay qaar kamid ah ciyaartoyda Barca iyo tababaraha Barcelona oo saddex ciyaar la soo dhaafay laga badiyay Champions League oo ay ka badisay ma ay raatay kooxda Atlantic Madrid iyo Liga oo la reebay iyo koob dalhay oo ay ka qaaday isbuucan dhexdiisa Real Madrid oo dhaawac ka ahaa weeraryahankeeda ay ku qaarato Cristiano Ronaldo aad u xiiso badan Premier League dadka dunida ku nool indhayo kubadda cagta waxay aad ay ugu faraxsan yihiin Liverpool oo ah kooxda Ingiriiska ugu koobabka badan kooxdaas oo sanadadii la soo dhaafay ay masiibo ku habsatay taageerayaasheeduna ay sheegeen masiibada ku habsatay Liverpool inay tahay masiibo qaran maxaa yeelay Liverpool waa koox dunida aad taageero weyn ku leh waxaana la sheegaa kooxaha adduunka ugu taageeraha badan inay tahay ay kamid tahay ayada iyo AC Milan oo ay sheegeen madaxda FIFA kooxdaas haddii aanay dib loo dhisin kubadda cagta inay xaraaradeedu ay su'aal galayso laakiin Liverpool ayaa sanadkan waxa ay isku dayday sidii ay ku aadi lahayd Champions League soo socdo aynu ku guuleysan lahayd Premier League Ingiriiska Liverpool waxay ku
hogaamin haysaa Liga Ingiriiska sideetan dhigood kooxda kaloo ku xigta waa Chelsea oo arrin la yaab leh isbuucan ku yeetay macallin Jose Mourinho oo sheegay in uu saxaafadda la hadlay maadaama ay koox yar ay ka badisay ciyaarta kale oo ayadana aad iyo aad u xiisaha badneed waxay ahayd Hull City iyo Arsenal oo isku soo haray koobka loo yaqaan koobka Ingiriiska koobkaas oo ah koob ay dhigto boqorada Ingiriiska Hull City iyo Arsenal oo koobkaas finaalka isku soo haray ayaa hadda waxay dheeleen ciyaar ka tirsan Premier League Arsenal ayaana 3 ku badisay ciyaar ayadana aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxay saacada ka hor dhaxmartay kooxda Everton iyo kooxda Manchester United oo taageerayaasha Manchester United ay aad iyo aad ugu faraxsaneen tababarahooda David Moyes maadaama ayaan ka hor ay diyaarada ay ku buufiyeen taageerayaasha Manchester United waa inuu baxaa David Moyes garoonka korkiisana ee diyaaradaas marka ayadoo babinayso ayna ku leeyihiin David Moyes halka taga meesha maadaama Sir Alex Ferguson tababarihii hore ee kooxda Manchester United oo 26 sano kooxdaas hayeen oo uu hogaamiyay inay koobo badan ku guuleysato Premier League Ingiriiska Champions League iyo koobka boqorada Everton ayaana maanta laba uga badisay Manchester United laakiin saxaafadda iyo wariyaasha adduunka iyo journalistiyaashu waxay isweydiinayaan sanadkan masiibada ku dhacday Manchester United ciyaarta kale oo isbuuca soo socda dhici doonto waa Champions League ay isku arki doonaan kooxaha Chelsea iyo Atlantic Madrid waxa kale oo ayadana dhigi doono Real Madrid iyo Bayern Munich Bundesliga Jarmalka waxa isbuucan isfarasaaray maadaama lagu kala baxay Bundesliga ay ku guuleysatay ayadoo 7 ciyaar ka dhiman tahay kooxda Bayern Munich laakiin ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxa dhaxmartay Borussia Dortmund iyo Mainz Ebersham Borussia Dortmund ayaana afara Eberguusho Super Liga Switzerland kooxda Arrow ayaa halaalaba waxay guusha ku raacday FC Lucerne oo laba ay guusha ku raacday waxa kale oo fooda isdaray kooxda Basel iyo kooxda FC Zurich oo wadankan Switzerland loo yaqaano Al-Clasico Switzerland waxaana guusha afar ku badisay kooxda Basel halka kooxda FC Zurich kooxahan wadankan Switzerland ugu tunka weyn looga adkaaday isbuucan halka FC Sangalen iyo Lausanne ay eber ku kala baxeen kooxda ka dhisan caasimada dalka Switzerland ee Young Boy iyo FC Sion waxay ku kala baxeen eber halkaasna waxa noogu dhamaaday barnaamijkii ciyaaraha أدبر ما صدقي عبدالله halkaad kala socoteen barnaamijkaas waxa waa Soomaali Swiss Lora oo kaga timaada maalin ka soo qameeyay magaalada Tanzania haddana waxaad ku soo dhawaataan hees macaan ee ku luqeyso waxa wakin See
barnaamijkii tixanaan oo ahaa 2 ilaa 3 galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa heesta muuse ismaaciil qalinle inta barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo